السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada qodobada wararkeena ugu doorka roon waxaana kamida gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Madoobe oo go'aan ka soo saaray Sheikh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo lagu leeyahay maalintii saddexaad wadanka isu taga Imaaraadka Carabta xaalkiisu waa sidee warkeena ayaad ku maqli doontaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo go'aan aan la filayn ka qaatay dawladda Kenya iyo xasan sheekh maxamuud oo maalintii afaraad ku adkaatay inuu la kulmo Erdogan tan ku soo dhawaada daawadayaal warkii oo faahfaahsan gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Madoobe ayaa ka soo saaray war aan la filaynin Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo 5 sano ku jira xabsi guri Aadan Madoobe ayaa sheegay inuu Mukhtaar ku xiran yahay xaq darro ayna tahay in sida ugu dhaqsaha badan xorriyadiisa dib loogu celiyo Aadan Madoobe ayaa sheegay qaabkii loo soo qabtay Mukhtaar Roobo Abu Mansuur inay ahayd qaab aan loo marin wadadii saxsaneed Sheikh Aadan Madoobe ayaa sheegay inuu ku bixin doono dadaal weyn si uu sii deyn lahaa Sheikh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo u ambabaxay 3 bari ka hor wadankaasi oo isu taga Imaaraadka Carabta ayaana lahayn warkiisa Saciid Cabdullaahi Dani ayaa la sheegay inuu ugu ambabaxay isu taga Imaaraadka Carabta isla xisaabtan ku aadan doorashadii uu ku galay dawladda federaalka Soomaaliya inuu ku raadiyo xilkii madaxweynenimada Soomaaliya Dani ayaa la soo sheegay xaalkiisa inuu aad u xun yahay maadaama laga rabo isla xisaabtan aad u weyn Dani ayaa sidoo kale ka careysan tagitaankii uu tagay xasan sheekh maxamuud isu taga Imaaraadka Carabta halkaas uu xasan sheekh ka dhaadhiciyay isu taga Imaaraadka Carabta inuu u fulin doono danahooda uuna u gali doono booski Saciid Cabdullaahi Dani ayaa arrintan u muuqata mid ku noqonaysa waji gabax kana soo xiraysa albaabo badan uu ka heli jiray dhaqaale Dani ayaa arrintu ku sii adkaanaysa Dani ayaa u sheegay mas'uuliyiinta dawladda isu taga Imaaraadka Carabta in lacagtii doorashadu ay kaga baxday siinta xildhibaano iyo ololeynta doorashadiisa Dani ayaa u muuqda mid aan ka badbaadi doonin shirqoolka ay u fulin doonaan dawladda Imaaraadka Carabta dawladda Kenya ayaa aad uga carootay fal uu ku kacay madaxweyne xasan sheekh maxamuud kadib markii dawladda Kenya ay u fidisay casuumad rasmi ah si uu uga qayb galo shirka urur goboleedka IGAD ee ka dhacay magaalada Nairobi Kenya ayaa ahayd martigeliyaha sanadkani Kenya ayaa u dirtay casuumad rasmi ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud halkaas uu dabayaaqadii usbuucan uu xasan sheekh maxamuud ku ogolaaday inuu ka qayb galayo kulankaasi balse qorshuhu wuxuu isbedelay kadib markii xasan sheekh maxamuud looga yeeray Turkiga kadib khilaaf soo dhexgalay Masar iyo Turkiga xasan sheekh maxamuud ayaa u diray warqad cudurdaar oo sheegay inuu san ka qayb gali karin shirkaas oo soo diri doono ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed Kenya ayaa u aragtay xasan sheekh maxamuud inuu iskeeno Nairobi kana qayb galo shirka kadibna ay ka wada hadlaan heshiiskii ay maalin dhaweed ku galeen magaalada Muqdisho oo xasan sheekh maxamuud ka gaabsaday inuu fasaxo qaadka dawladda Kenya ayaa walaacan aad uga qabta in dawladda xasan sheekh maxamuud ay la habdhaqan tahay dawladii farmaajo Kenya waxay sugaysay in jawaanadeeda waaweyn ee jaadka ku soo rarto diyaaradaheeda kadibna ka soo dejiso magaalada Muqdisho laakiin xasan sheekh maxamuud oo u muuqda mid ka baqaya shacabka Soomaaliyeed ayaanan arrintan wax talaabo ah ka qaadin waa la gaaray isfahan siyaasadeed waana la wada hadlay waana la heshiiyay in wax la kala bedesho laakiin qaadka si toos ah looma fasaxin arrintani waxa ka soo xiganay la taliyaha madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya dhanka arrimaha siyaasadda madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maalintii afaraad ku hooyanaya dalkaas iyo Turkiga xasan sheekh maxamuud ayaa isku mashquuliyay kulamo uu la qaatay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ka jooga ee Turkiga iyo jaaliyadda Soomaaliyeed wararka aadka looga naxa ayaa Turkiga oo qaabilin madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya muddo 4 bari ah inay si degdeg ah shalay ku qaabishay ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga oo shalay ku yimid safar ma qaadan muddo gaaraysa 2 saacadood kadib markii loo galbiyay qasriga madaxtooyada ee dawladda Turkiga looga arrimiyo intan ayaa aad loogu falaqeynayaa baraha bulshada shacabka Soomaaliyeedna aad uga xanaaqayaan waxayna leeyihiin habdhaqankii UAE ee lagu sameeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wali Turkiga ay ku daba jirtaa qaabkii oo kale inay sameyso xasan sheekh maxamuud ayaa laha rajo aad u wanaagsan shalay inuu la kulmo Erdogan kadib waxa ka soo dhexgalay safarkii ra'iisul wasaaraha Talyaaniga xasan sheekh ayaa sidoo kale la rajaynayaa inuusan maanta la kulmi doonin madaxweyne Erdogan uu la kulmi doono birito
arrintan ayaa ku noqonaysa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud wadan uusan madaxweyne ka ahayn joogay 6 beri kuna qaadatay mas'uulkii ugu sarreeyay wadanka ama madaxdii ugu sarsareysay wadanka uu la kulmo muddo 6 beriya. daawadayaal waa naga intaas wararkeennii maanta. fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar si aad ula socoto warka xiga. mahadsanidin.